السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow Carabiif channel. haddii channelkeena aad ku cusub tahay hay'adda inaad subscribe saartid. haddii aad tahay yani dadkeennii ugu horreeyay waxyaabaha aad u wanaagsan tihiin maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo faa'iidooyinka ay leedahay qofka niyada ama niyada Soomaaliyeed inay wax ka bartaan digital marketing-ka. maanta waxaan rabaa inaan sameyno horto waxaan fiirinaynaa digital marketing job opportunities fursadaha ay leedahay. tusaale haddii aan ku qoro halkan digital marketing job opportunities 20 camal. marka haddii graphics-ka waxyaabahaas aad fiirisid ama yani aad isku barbar dhigto maadooyinka kale iyo waxyaabahaas waxaa arkaysaa yani more demand inuu ku jiro yani clear scope-ka haddii aad fiirisid. halkaan sawirkaan tusaale haddii aad fiirisid qofka markii uu yahay scope-ka waxyaabaha waxaa laga wadaa kan yani shaqooyin kala duwan oo qofka qaban karo. tusaale waxaa noqon kartaa training qof oo digital marketing trainer ah ama digital marketing analysis oo yani analystina shirkadaha aad ka caawisid dhanka analytics-ka iyo datada iyo waxyaabahaas. sidoo kale expert ay noqon kartaa yani sidoo kale haddii 6 sano aad ku dhex jirtid waxaa noqon kartaa team leader ama team manager shirkad dhan inaad teamkeeda manager aad noqotid. haddii 8 sano aad ku dhex jirtid waxaa laga yaabaa inaad digital marketing manager aad noqotid 9 years. haddii aad ku dhex jirtid waxaa laga yaabaa inaad noqotid digital marketing strategy shirkada dhan qofka istiraatiijiyada iyo kambeynada dejin lahay. haddii 10 sano waxyaabahaas aad ku dhex jirtidna waxaa laga yaabaa inaad noqotid maxaa la dhahaa digital marketing ama marketing chief marketing officer qofka shirkada dhan u qaabilsan dhanka yani marketingka. sidoo kale yani haddii aad fiirsid digital marketingka institutional marketingka marka la dhaho reachka ama dadka yani aad ku gaaraysid lacag. tusaale haddii broadcast camal aad tahay traditionalka aad isticmaalaysid waxaa laga yaabaa yani boqolkii dollar oo broadcast ama TV iyo radio aad gelisid waxaa laga yaabaa dad boqol qofood ilaa 200 inay gaaraan. haddii newspaper aad ku qortid $250 waxaa laga yaabaa ugu yaraan newspaperka bishii inuu kaa qaato. haddii tusaale magazine aad ku qortidna waa $500 ama direct mail ama emails dadka fariimaha message-ka aad ugu dirtid yani lacagaha kaaga baxayo $900. hadda tusaale hormuud haddii aad isticmaalaysid oo aad yani ku bixisid maxaa la dhahaa emailkeeda aad rantigaraysid waxaa laga yaabaa bishii lacaga ama intaasoo $1,000 ay kaa qaado dadka aad gaaraysidna ama ay iska yaryihiin. laakiin digitalka fiiri waxaa laga yaabaa sirjiga waxyaabahan Google Ads-ka la dhahayo oo tusaale hadda Google Ads-ka waxaa ka mid tusaale haddii aad booqano website-kan la dhahayo oo caasimadda xoogaa aad aan u jeclahay dhanka yani update-ka iyo xayeysiimahaas aad u isticmaalaan marka aad fiirisid caasimadda qaybtan kore xayeysiina ka muuqato saa ujeediin yani qaybtan kore hadday soo baxaysaa aweli active maahin. xayeysiinta markay soo baxdo waxaa arkaysaa yani website markaa booqatid tusaale hadda waa kana hadda anaa domain aan raadinayo domain name aan raadinayo oo Google aan ka barbaarayo cuyuub waa kana. sidoo kale waxyaabaha yani digital marketing-ka ay cajiibka ku tahay waxaa waaye hadda ujeedid kan camal yani lacagta oo in xayeysiimahan website-yada dadka qof walba website-kiisa inaad saartid lacagta kaaga bixis way yarta. tusaale hadda fiiriyaa waxaan sameynaa waxaa booqanaa Alibaba yani qof walba uu yaqaano waa website aan oo adduunka ka jiro. hadda yani meeshaan hadda anaga aan joogno waxaan rabaa inuu Alibaba soo fuulo sababtoo ah hadda website aan booqanayn Soomaali waaye. waxyaaba cajiibka digital marketing ay ku tahay tusaale waxaa ka mid ah tusaale hadda alaabtana waxaa ka raadinaa meeshaan tusaale fashion shoes ama Nike aa baara ama halkan haddii aan ka baaro Nike waxaa baara Nike shoes waxyaabahan aa baarbaara marka waxyaaba cajiiba ayaan tusi rabaa.
waxyar oo cajiib ah baan idin tusayaa. Hadda kabahan markaa saan u fiirino website walba aan galno waxaan rabnaa inay naga daba imaadaan oo meel walbaa tagno yani ay nala soo xiriiraan yani na dhahaan oo website kale haddaan booqano inaa xaysiintan lagu aragnaa ama wax u dhigmo oo ka socda Alibaba. Marka waxyaabaha yani digital marketingka cajabka ku tahay ka mid ah tusaale hadda xaysiin markaa aragtid ama website aad booqatid haddii Instagram aad waa lagu tusaa, haddii aad tagtid maxaa la dhahaa Facebook waa arkaysaa, YouTube haddaad tagtid isla xaysiinta ku daba soconaysa. laakiin waxaa marka radio lagu xaysiiyo oo maxaa la dhahaa radio lagu xaysiiyo waxaa laga yaabaa yani qofka in loogu celceliyo the same inuu arkaa laga yaabaa. laakiin hadda okay waxaa ku laabanaynaa caasimadda. hadda waxaan ku jirnay website-kan tusaale halkaan waxaa dhahaa refresh markaa dhaho kor hadda aday waxaa ka arkaynay yani number 1 domain iyo hosting waxyaabahaas aan raadinayay. hadda laakiin website-kan Alibaba galay xaysiinta inta kasoo muuqanaysa waxaan rabaa inay ahaato Alibaba laga xiriiro. okay weli waxa ay daba socdo kuwii hore marka let's marka la refresh gareyno oo kabahani waxaana yani iska xirxiraa dadka. okay dadkana xiraaya waxaan rabaa inaan ku laabto marka waxaan ku laabanaya caasimadda dadka markaan ka baxo oo aan ku laabto caasimadda waxaan rabaa inuu ii soo celiyo yani xaysiin la xiriir kabahan. tusaale waxaa dhahaa mar labaad refresh. hadda weli meeshan waxaa iga muuqdo waxyaabo kale oo aanan baarin. marka la refresh gareyno okay waxaan rabaa inay boom isoo dhahdo waxa la xiriiro kanna waxaa waaye Business Insider xaysiintaana aydan aad ii daba socotaa. okay still weli saar okay imise lacag website-kan gudaha u kaleynaa marka website haddii aad gudaha u galo qeybahan inay xaysiin kasoo baxdaan rabaa. qadka waxaa u malaysaa xoogaa inuu iga yara culus yahay laakiin okay kada saa imaan doono waxay rabta inaan u dul qaadanaba value proposition xaysiintaana ay daba socotay weli laakiin kaas ma rabaan. okay hadda website kale aan booqanayna tusaale jawhar ama jawhar.com jawhar.com weli ma qaadanayna afka leha okay يعني ما قان حيسينتان Alibaba waxay u diidan tahay ujeedada guud ah u socda waxay ahayd marka inay nagu soo laabataa laga yaabaa. okay aan ka wada baxno let us refresh this page san u harayna. okay hadda ujeed meeshaan fiiri hadda waxaa booqanay Alibaba waxyaabaa waxaa la dhahaa retargeting. tusaale in yani meesha aad gashidbo ama lagu dib lagu soo target gareeyo oo yani lagula socdo. hadda waxaan saa ujeed waa Alibaba. marka waxyaabaha digital marketing ee cajabka ku tahay waaye qof walba oo barto yani wuxuu u shaqeyn karaa shirkadaha waaweyn sida Alibaba, Amazon, Facebook inaa la shaqeysid ka caawisid dhanka xaysiinta. marka يعني waa qayb kamid ah faa'iidooyinka. marka waxaan raadinaynaa yani fursadaha shaqo ay leedahay. tusaale hadda waxaa jiro website la Intentional oo badanaa waxaa laga helaa internshipska oo adduunka ka jiro qofka yani inuu dhanka shaqo inuu barto markuu rabo. number 1 waxaa u baahan tahay inaad internship sameysid oo aad yani at least wax uun soo qabatid. tusaale haddii internshipska aad fiirino international aa jiro sidoo kale waxaa jiro hadda Chennai camal aan fiirino. magaaladan waa magaalada waxbarashada aan ku baranaynay. waxyaabaha ugu badan ee meeshaan laga helo waxaa ugu badan waa content writing. tusaale waa qayb kamid ah digital marketingka web development. hadda waxaan soo laabtay content marketing tusaale digital marketing web development growth hacking yani waxyaabahan waxay kamid yihiin waa digital marketing qaybo kamid ah data analysis-kii
يعني content writing digital marketing كسوع digital marketing يعني waxa ugu badan ee hadda adduunka yani la raadinaya marketingka caadiga waa laga tagaya كسوع digital marketing marka saa ujeeda hadda magaaladan waxay ahayd Janay waxaa fiirin doonaa magaalo kale yani waxa ugu badan ee mar walba soo laalaabanaya waxay noqonaysaa digital misal Bangalore aan fiirinayna Bangalore waa magaalada dhanka tiknoolajiyada ugu caansan dhanka India waxay raadinayaan campus ambassador digital marketing saa ujeedid waxyaabaha ugu badan ee meeshan aad ka arkaysid waa digital marketing brand marketing digital marketing saa ujeedid content writing waa qayb ka mid ah digital marketing waxyar la soco يعني awesome job waa saa ujeeda digital marketing social media marketing marka يعني waa fursadaha ugu badan ee hadda adduunka jira magaalo kale hadaa fiirino tusaale Hyderabad aa fiirinayna ayadana yani yaa number 1 ka ah tusaale consulting business development data entry graphic design operations human resource content writing saa ujeeda waa qayb ka mid ah digital marketingka video marketing business graphic store campus ambassador digital marketing campus ambassador marka يعني وحالي كنا the best job يعني meel walba joogtid adduunkan Mumbai hadaa fiirino waa ka shaqeyn kartaa okay Mumbai fiirinayna marketing video marketing campus ambassador social media marketing saa ujeedid waa qayb ka mid ah digital marketing UI iyo UX design waxyaabahan dhan digital marketing social media marketing waa qayb ka mid ah yani dhanka online marketing kale marka يعني سأوجدين وفرصة مبادئ هذا الدنيا كتير مركز له يعني وح قف هذا أنا صفر تكون كرادية في الانترناشنال محلها برنامج كأما ديجيتال ماركتينج وكان سأوجدين وولي work from home وكان عمل هذا دي قبل كنا سأوجد فيه كريب سباك فاونديشن اسمه ديجيتال ماركتينج وصلوا كله work from home إن بقول كشتين كتير هذا يعني حافظ هذا الجو سو كانوا يحبون يعني وحلا هاي بونus إياه ستيبس كل ده في رسالة خوايا unpaid واي أو sorry خارج وحين paid سوي جديد وبقول كان عمل أفر كونه ربي يوتيوب ماركتينج unpaid واي يعني work from home واي وحيوان أنا يوتيوب ماركتينج وكيف كده digital ماركتينج entrepreneurs content ماركتينج كونتنت واي مركا يعني the best job أقابل كرتيد واحد صار دي أكبرسيد وعابا قف كلا جربه create and implement engage in digital content assign a brand مركو حابها مفروض وsimple قف كحل من هذا برتيدنا وهواي يعني وح simple أقابل كرتيد منكو حنا يعني skill صوص بلان مركا وحرجينا إن يعني حق ديراد أكبر digital marketing يسمى soo socdo يعني ganacsi walba wuxuu noqon doonaa digital marketing haddii faahfaahin dheeraad iyo waxyaaba dheeri oo course-kan ku xiriira u baahan tihiin waa naga soo hadli karteen oo waxaa naga soo hadli karteen social mediaha facebookeena ama whatsappke ama maxaa la Instagramka insha Allah then waxaa idin siin doonaa program qiimo dhimis aad u ballaaran